dardaarta aan shalay dardaaranay xildhibaanada qaar waa fuliyeen waa ku mahadsan yihiin maanta sagaalkii subaxnimo 6 xildhibaana fadhiday laakiin alxamdulilah hadda kooramkeena waa buuxa wiilana waxaa naga muuqata weliba daahida naga muuqata sidii shalay isku ogaa ma suuroobin laakiin sidii hore waa la dhaamaa waxaa mar labaad inuu adkeynaya shaqo kale ma hayno anu wasiir manihin shaqo kale ma hayno ganacsi ma hayno waxaan haynaa shaqadeena waa tan kaliya in waqtiga aad loo ilaaliyo mar labaad taasayna ka codsanaynaa sharafteena saasay ku jirtaa taas intaasaan ugu baxaya kooramka hadda noo joogo waa 143 waa 143 xildhibaan ayaa maaragtay haadir ah marka ajendaheena maanta sida laydin qiimeeyey buu ku saabsan yahay waxaa kale jira soo jeedin xildhibaano qaarkoodna soo gaarsiiyeen ayaa jirta marka arrintaasna waxaan rabaa in maaragtay taladan ku darsano xildhibaana waxay noo soo gudbiyeen warqad qoraal ah oo ay ku codsanayaan labadii xubnood oo shalay la yidhi in maaragtay arrintaas dib looga dhigo especially weliba hal xuban ay dacwadoodu u xoog badan tahay taasna waxaan rabaa inaan maaragtay idinla wadaagno go-aanka baarlamaankaas ka leh warqadaas nimanka soo gudbiyey ayagaan noo sheegi doonaa xalay markii masjidka la diraayay kuma jirin laakiin saakay noo keeneen arrintaasna waxaan rabaa inaad maaragtay aad ogaataan anigu waxaan rabnay maanta ajendahan siduu ku qoran yahay inay ku socoto hawsha ajendaheena wuxuu ahaa in labada qareena daahir iyo marwe xaliiman inaan dhaarino heer hoosadkana la akriyo labadaas aanay maaragtay arrintan ugu muhiimsanayd marka qodobkaas oo lala soo gudboonaday xildhibaano soo jeediyeen oo qoraal ahaan noogu soo dubiyeenaa jira marka xildhibaanada sharafta leh shirkeena waa noo furan yahay marka waxaan rabaa xildhibaanada soo jeediyey arrintaas in maaragtay arrintay ku sababeynayaan in maaragtay hal qof iyo hal qof sankan gara inay noo sheegaan kadib talan hawshan aan wadan doonaa insha allah